batuula kay xalay intuu live soo galay caytamay uu wuxuu baleeyay laakiin qofkii ugu horeeyay intuu Austria ka tagay qaniis shukaansigiisa Finland u aaday qaniisiinta reertay a video laga haay kugu xiran tahay waan kugu raacsana jeef hal sac live igu caynaysay laakiin aniga hal daqiiqa dhareerkaaga keena billaahi oo tallaahi ninka aniga igu yiri sii jeeso derbiga gacanta saar oo aan saan iri. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا كسود هذا معلم channel حسوا أركتين رك رتي يوتيوب عنك أو ذكرني سنة برش أبهنين أو مدح سكول جرو أنت نهارت فريمة أو رجع أيك عن حلقة كشيءين وعارها أنا أمهد عليو أصحاب نوقالي runtii nagu soo biirtay saacadii ugu dambeeyay aad iyo aad aniga mahad celinayna kun iyo koo jiro maasantiin asxaabta kale tana nagu soo dhawaada ininko mahadsan riixamarka waxay mininkiina waa intaa kadib waxaa soo aragteen ninkii qurux ku dhiila ahaa iyo CK oo waxba isku reebanin runtii arrintan way soo laabatay hadda koo maahan hadda ka hor aan arkay qurux ku dhiile oo CK ma daawo horta ma arkin videoga oo macnaha hadda ka hor aan istagaaleen hadda koo maahan laakiin dagaalkii hore ani waxaan daawaday qaybta qurux ku dhiile oo CK u jawaabay waa meesh CK ka raacday magacan batuula kay ya ani ma dhigan qurux ku dhiila dhahay marka magac batuula kay meeshu ka imaado waay ninkii bixiin inta ogeyn ha ogaato qofkii bixiyo qurux ku dhiilo ahaa magaca hadda heesaha lagu soo qaaday oo USB uu kala kacsaday marka kol meel uu waxan ka bilowday wax hadda hore ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan haddul istaago hadda maxaa soo celiyay macnaha hadda ka hor ragga istagaaleen runtii ami heshin laakiin uu dagaalku qabooba marka wixii uu yara dagay waqti hore ahayd dhowr bilood ka soo wareegtay laakiin hadda maxaa soo cusboonaysay hadda waxaa soo cusboonaysay aaladda loo TikTok horta waa aafo runtii dadkeen la soo diray macnaha ummadda kale waa isticmaashaa dabcan ayakana deeniyo waa arkay kuwa cadaan oo saan murmaayo laakiin dagaalkooda inta ma gaaro laakiin Soomaalida inta badan ma aqaan wax dagaalkan inta gaarsiyo marka laakiin waxaan arkay qurux ku dhiile oo CK jawaab runtii u malaysid inay tahay jawaab waxba aan ka dambeeynin macnaha hadal waxba aan ka dambeeynin ayuu qurux ku dhiile soo dhiibay waa daawan doonaa haddan inaan kasoo daawanay CK naftiisa habeen hore ninkan waa galay laakiin waxaa soo cusboonaysay dadkan TikTok isticmaala inta badan dadka horta isku diraan laba nin walaalo ah oo runtii dhalinyaro ah ayaa hadda madax isku geliyay arkeeno oo waxba isku reebanin laga yaabo hadda waxaan sii socoto laakiin ma rajeynaa inay sii socon doonto waxaan filaa inay soo afjari doonaan insha Allah laakiin dadka isku diray halkan hadda waxaan soo fadhiistay inaan CK la hadlo qurux ku dhiilin la hadlo dadkan isku dirayna aan si goon la hadlo horta markii waa si guud da la hadlo si shakhsi la hadlo doona CK iyo qurux ku dhiile laakiin si guud da la hadlo waxaan dhihi lahaa dagaal hadda rabtaan Soomaaliya ay u baahan dagaalamo oo qori u qaato oo cadow ka dhiciyo marka dagaal hadda rabtaan waxaan dhihi lahaa meesha aada ciidamada Nisa iyo Gorgor iyo ciidamadaas inay baahan ku biira laakiin meeshan isku booteenina ama haddii kale hadda rabtaan garamo weyn oo caalami ah jira isbalansada dhexdiina laga baxo ninka reerku haraaya midda ayada waa si guud inaan isku sii diray ha u qaadan asxaabta laakiin waxaan rabaa qaab ay ku soo afjari karaan waayo waxan way soo laabat inta badan haddii aan si gooni ula hadlo qurux ku dhiilanayo horta waa nin dhalinyaro tahay oo TikTok-ga caanka ah YouTube-kana waxaan u maleeyaa sanadii ugu dambeysay sanad miya ma aqaan sanad iyo barcam TikTok YouTube ku jira qurux ku dhiile aniga markaan baranayay cilmiga saxaafadda
adiga waxaad ku mashquulsaneed marka qaniiska ugu weyn Yurub Batula Makeup inaad video la geshid sawir la aniyow dagaalkan soo laabto horta weli ma arkin adoo qofka la dagaalay shakhsiyan la yaabo inay jiraan like ani ma arkin inta badan waxaan arkaa on adiga isiika isku dhagan qurux ku dhiilo oo qof kale is dagaal leeyahay isku joogo weli ma arkin laba jeer ark adoo xanaaqsan laba jeerna mar waa kana dhageysta kan waa kii koowaad oo magaca Batula K ugu bixisay CK mar kale kuma arkin adoo xanaaqsan marka waxaan dhihi lahaa niyow dagaalkan waa lagu daalay soo afjar qofku wax ku yeelo runtii u samir u dulqaado karoonaaw runtii waa sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam kamid tahay in qofku marka wax la yeelo uu samro samarkan runtii wax aad u wanaagsan qofka uu janno ku galaayo ku mutaysan karo waay marka insha Allah taa aydan ku leeyahay qurux ku dhiile mar daman ha soo hadlin waayo dagaalkan inuu soo laabto adiga sharaf ku ma ahan aaladna hadda ka hadlad YouTube kana de wax walba ku save gareysan waxa laga yaabaa bari ka maalin in ubadkaaga ay daawdaan marka insha Allah qurux ku dhiile waxaan filayaa in dardaarankaas uu qaadan doono uu ku soo gaari doono fariintan ay arjeenaa insha Allah waxa ku soo haray CK King CK ni horta waxa tahay YouTuber-ka ugu caansan Soomaali hada runta ku sheego waayo qof Soomaali ah oo maanta YouTube ku jiro adigu garneyn ma lahan nin ayay awow Soomaali meel joogto ku shiina joogto ku saan CK YouTube ku jiro oo Soomaali ah marka niyow dagaalkaaga ugu batay adiga iyo hadda kor waxaan daawanay shiin culi waxba isku reebanin adiga iyo Carlo waxba isku reebanin adiga iyo yaa kale fanaanka USB waxba isku reebanin wala badiyaa adiga Ismaaciil Xaaji waxba isku reebanin YouTube badan madax la gasheen wax keena ilaa hadda ma aqaan runtii inta badan waxa iga yaabi aan arko waxay tahay marka hal qof isgaashaan inta badan group uu goobto midda ayda ani wax keena ilaa hadda ma aqaano marka laakiin waxa u maleeyay inay keenayso inaad tahay qof runtii macaarad badan leh marka macaaradka faraha badan waxa ku yareen kartaa inaad dulqaad badan yeelatid number 1 number 2 waxa kale ku yareen kartaa in qofka markuu wax ku soo dhaho aad u jawaabin inta badan runtii asxaabta aad ku macaarad ani ma ayub Carlo saas ani ma ayub Carlo dadka waxaan ka maqla soo leh ayub Carlo YouTube ka dhigayso daawan kartiin asagoo dhahay CK wala horta aad ku amaanay ayub Carlo mid ayadoo ku amaanaa because waxa tahay oo kuwana intuu ku sheegay wuxuu sheegay inaad tahay shakhsi la dhaqmi karo dhalinyaro la socon karto laakiin dhibkaaga u weyn tahay qofka duu wax ku soo dhaho u jawaabaysid inta ay runtii CK waxaan ilaa wuxuu ku yareen karaa macaarid faraha badan hadii uu soo jawaabin oo aamuso marka insha Allah taladan waxaan filayaa inay qaadan doonaan CK iyo qurux ku dhiile inta kala soo hartayna waxaan dabkan aan shideeno bulbul aan leen naga daaya waxna waa wax fiican ma ahan dagaalku muu soo laabtay inta badan waa wax loo baahan yahay in laga waantoobo hadda arkaysaan waa subax alisay ah waa kalo kan 6 morning waxa macnaha waa 6 subaxnimo raala hada raiisulna fahmi karo waxaan sheegay marka waa 6 aroornimo marka arkay dagaalkan socdo buuqan socdo waxan waa runtii xal inta hurda dhaceen horta shalay waa arkay wax yar laakiin ma sii dabagelin laakiin video hadda aan soo qaatay oo qurux ku dhiile ayaan gadaal ka arkay marka runtii qurux ku dhiil naftiisa waa nin legend ah CK no qofka aan naqaan maanta aqaano waa YouTuber caan ah Soomaalida oo taqaano fanaan hadda isku bedelay markii inta ugu dambeysay fanaanimada runtii xoog saaray wali wararka qaar ay sheegayaan meesha uu rabo in wali ka gaarin marka odag like haddu kala kacsan yahay waayo hooyigi fanku jooga Hargeysa marka insha Allah joogdan halka ku qaad CK dagaalkan hal yare waxa way soo laabatay caawis waxa wadaan maanta waa nabadoonka meesha soo fadhiiseen marka dagaalka yareeya dad kale tan runtii ku wada xiran labadooda runtii waxaan dhihi lahaa arrintan ka waanto waa dhamaantiina waxaan hayaa cadeyn runtii oo ah
in halkan soo dhigo mar halkan soo dhigo waxa laga yaabaa inay dad kale u sii dirto oo leeyahay camal adiga caawa saacada ka soo hadal dagaalka ani iyo hiblow ada saacada ka soo hadal dagaalka ani hiblow ada saacada frame la diray camal marka frame noocaas ay camal ay kan runtii qofka dirayna waa inuu joojiyo kuwa loo dirayna waxaan dhihi lahaa marka YouTube soo fadhiisanaysaan macnaha microphone qabsanaysaan camera soo fadhiisanaysaan wax raayi inagii maanta ku hadla wax qof kale in soo diray ku hadlina wax fiican ma ahan inuu qof bin aadan ani dhaho xagga fadhiisay hadal saan dheh oo aan qaato waa dulilamati uu weyneed marka waayo qof kaleeto wuxuu rabaa inuu mid kaleeto ka soo jeedo uu kugu diro marka midda ay wax fiican ma ahan in qof walaalka ama walaasha laga horkeen lagu diro sharaf ma ahan wax fiican ma ahan marka waxaan filaa kuwa sameynaa inay koontuwaan haddii laakiin kuwa wax loo diray aan arkay ayagoo ka hadlaayo qofka leey ka soo hadla cadeemaha waa keena beebani sheegay marka asxaabta videogan soo gabagayn doonaa waxaan daawan doonaa videoga qurux ku dhigle oo CK oo runtii oo la hadlaayo laakiin hadalka waxaan u soo qaato xeeta qaabka lagu joojinayo waxaan galno talooyinka aan soo jeediyo inay qaadan doonaan umaleena marka waan salaam asxaabta haddii tahay markuu rajanaaka soo booqatid fadlan subscribe noo waxaan arkay qamiis imaaday TikTok oo baati xiran oo qamiis xiran oo wajiga hurud marsanaya yaa u wacay qurux ku dhiig la u wacay Batula K xalay intuu live soo galay caytamay oo wuxuu baleeyay qurux ku dhigle qaniisiinta asaa TikTok keenay taa cadeen looma hay laakiin qofkii ugu horeeyay intuu Austria ka tagay qaniis shukaansigiisa Finland u aaday qaniisiinta share out u sameeyay adiga waay blue makeup adana bari inta dhaxda qabsatay yaa shishumisay shaashada korkeeda ku leefleeftay xabadka gelisay ku kor dhareertay a video laga hayo Batula beentaada ma ahan waxa ma la sameyn kara aday copyright kugu xiran tahay waan kugu raacsana Jeff Batula adoo caytintaada sii wata waxa tiri ruuxii nikiya waa khaniis qurux ku dhiglaana bilaabay okay laakiin waxa ilowday ruuxii intuu Instagram-ka iskala faliiqay diyaarad soo degayso kale dabadana ka leersaday gaari gacanka dambana dholo tusmanatari ka sameeyay atiriisha kacsi barad camal yaa dabada kor u taagay asoo raganimo sheeganay ruuxaasna maxuu noqonaan remember caashaqadaad weynay adoo leh dhaqankii qaniisiinta inaa qaniis dad ku caysaa waa kugu ceeb waayo mar walba waxaad koobiyeysaa oo aad xadaa fashionkii gabdhaha waayo dhowr jeer waxaan ku aragnay adoo katiinad dahab ah katiinad qalin ah wata marka ruux walba wadanku iska dhiibo uu ku dhaqan yahay can we call you Atrisha Halawde maadaama dhaqanka dumarka leedahay X the boyfriend of blue makeup Batula K remember teeda kale gabadha markay guurdoon tahay waxaa lagu yaqaanaa intay saloonka tagto ayay timaha dabataa iyadoo isqurxinaysa laakiin adiga adoo nin rag ah intaad saloon aadid timaha aad dabatid yaa isku qurxinaysa in lagu aroos marta hal saac live igu caynaysay laakiin aniga hal daqiiqa dhareerkaaga keena marka dadka kala baro qurux ku dhiigla waa jamalkana burus ma karo laakiin adiga shukulaataa tahay shukulaatadana ilmaha yaryar carabka ku qaata ku baashaala daba shumac waaxid